waad hayaad u mahadsan yahay Sheekh Maxamed Cabdi Umal Sheekh waxa jirto in ay wanaagsan tahay in la akhriyo bisha Ramadaan Quraanka Kariimka maalmihii ugu dambeeyay waxa socday in ay soo baxday wax la yiraahdo Quran Challenge ama tartan lagu sameeyo dhanka Quraanka Kariimka oo ay sameeyaan bahda fanaaniinta Soomaalida iyadoo la soo dhigayo baraha bulshada ay ku kulanto qaybaheeda kala duwan kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar lana akhrinayo Quraankaasi aayadaha qaarkood si khaldan baa loo akhriyo ama aan wanaagsanayn Quran Challenge waxa la yiraahdo ama tartankaasi ku aadan ragga iyo dumarka dhexdooda diinta islaamku maxay ka qabtaa arintan si ku aadan in qolaba goyskeeda ay ka soo akhrinayso oo baraha bulshada iyaguna la soo dhigaan maxay ka qabtaa bismillahir rahmanir rahim runtii sawiradaasi wax kamida waan arkay fanaaniinta ay sameynayaan Soomaalida qiyaastayda waxa weeye waa jees iyo quraankii oo ay ku ciyaarayaan quraanka marka la akhrinayo qaab buu leeyahay marka lagu tartamayo qaab buu leeyahay usluub buu leeyahay aadaab buu leeyahay qadarin buu leeyahay waa ilaahay hadalkiisa tabaaraka wa tacaala waa shay muslimiinta oo dhan kooxahooda kala duwan qadarin iyo qiimeyn ku leh in ilaahay aayaadkiisa marka lagu jeesto oo ruux isagoo akhrinaya ciyaaro oo isrido oo aayadihii jajabiyo oo fanaanadii iyadoo qaawan ay waxbaan tartamaya tiraahdo oo waa badweyntii dambiyada ahaa ay fanaaniintu ku dhex jireen bay mid ka weyn soo galeen oo shaytaankii waa meel kale u sii jiiday maxayna soo galaysaa saan isleeyahay Allah tabaaraka wa tacaala aayada fi suurati tawba uu ku yiri qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ma Allah ya aayadihiisa iyo rasuulkiisa ku jeeseysaan waxbaha cudur daaranina waa gaalowdeen iimaan kadib ayaa diinta ka baxdeen oo waa gaalowdeen baa la yiri waxyaalo waxaa jira muqaddasaad waaweyn ah oo aan jees iyo ciyaar aan geli karin Quran Challenge yani Quraanka see challenge loogu sameyn karo waa wax isweydiin la waaye qashinka noocaas oo kala ah cidda sameynaysa waa in Ilaahay u noqoto toobad keento ummaduna waxa noocaas oo kala marka la arko